qolaji waxay ka mid tahay 389 sayt oo qaxooti ay degan yihiin deegaanka gudihiisa ha yeeshee wata ugu weyn tirada ugu badan baa joogto 78,000 qiyaastii baa joogo 78,200 qof baa joogo markii qof loo tiriyo 12,200 qoys baa joogo guud ahaan qolaji 6 bilood la soo dhaafay intaan ka joognay noloshu saan sheegay dadkan qaxootiga ee 700,000 ah ee ku barakacay dhinaca khilaafaadka xadka meesha kaliya ee dadkoodu ay ku jiraan raashinka tooska ee wareeg kasta bulshada la siiya taageerada waa qolaji kaliya ka waran marka waxaad siisaan waa maxay raashinka taageerada ee bulshada la siiya deegaanku kolba nooc buu leeyahay mar waxay noqotaa saliid iyo boorash iyo haruurkan yaryar iyo ama galey kolba nooc buu isugu jiraa kaas waa WF waxa la mariyo 78,000 ee qolaji joogo 64,200 ama 65,000 yaa ku jiro liistiga ku register garaysan inta ka hadhay waa intii ka dambeysay taa waa midda qolaji waxay la dheertay waa meesha koobaad ee kaligeed ku jirto tulli guulad kuwan joogo kuma jiraan kuwan gursum joogo kuma jiraan sababtoo ah lama gelin marka hore laakiin sanadkan waan gelin hadda laga bilaabo wareegan hadda toddobaadka soo socday qaadan doonaan uu gaari doonaa waxa inta u dheer intaan joognay waxaan siinaynay agabka kolbaba sharciyadu wada aragtay ka dhamaan karayaan waxaan siinaynay agabka kale cuntada iyo waxa lagu sameeyo waxaan siinaynay bariis boorash iyo saliid dheeri ah oo budgetka deegaanka gaar ahaan looga iibinay waxaan siinaynay caruurta yaryar ee meesha joogto caano iyo buskud nafaqada xageeda ka kabayo waxaan ku leeyahay doorka ee ugu raagid badnay raashinka la siiyo qolaji waa hadda dhowr iyo 30 bari 40 bari ma buuxsamin subax isniinta loo dejinaya oo la raraya maanta tiimka ku jireen raridooda la qaaday wareegyada dhammaan bulshada la siiyo deegaanka iyo qayb ka yihiin laakiin waaba qorshe cusub hadda sameynayno hadda kadib ayna daahayn mana noqon doonto mustaqbalka qolaji waa jiri doonto maaha mustaqbalka qolaji dadka joogay qorshe aan u diyaarinno degdeg oo ku kala saarayno oo qolo meel ku dajinayna sameynayna laakiin wax dhaqanka Soomaalida wax siyaasiga baahida lagu sheegay ka baxsan qolajina ka jirta maamulka